السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي كحرن جنال كمركز السود وواضح أدي هذا ومهد سنتيهين مانتا وأربعة وأنا اللحظة بيش سديداد أغسطس سنة كلبضو كن يشان يلباتنك مقال كان وحربا إنا ندكولا وذاقو قبل كتاكسيس محاكا صعدة أرنتا كسعوتا حالة كتاغن أو لغا يابا إنا سامين كو يالتو قودهان ودنك وأرن سياسات ترامب ayaa waxa uu ka codsaday gudoomiyaha gobolka Texas in shan degmo oo shan xildhibaan oo dimuqraadi ah laga soo doorto oo gobolka Texas ku taala loo bedelo Republican maadaama doorashooyinka xilliga dhexe ee midtermska sanadka soo socda dhamaadkiisa November dhici doona ay Republicanku ka cabsi qabaan in dimuqraadiyiintu ay kala wareegaan aqlabiyadda aqalka hoose ee Congress-ka Mareykanka taasi waxay sababtay in xildhibaanadii dimuqraadiga ah ee aqalka wakiilada ee baarlamaanka gobolka Texas ku jiray ay axadii isaga cararaan gobolkaasi haddaba xagee aadeen maxayse u doonayaan in aysan imaanin inta kal fadhigan qaaska ah ee gudoomiyaha gobolka Texas uu ku baaqay uu socdo imisa ayaa ka dhiman in uu dhamaado kooramkii oo u dhameystirmi la xubnaha Republicanka ee gobolka Texas si sharciyadaasi ay u meel mariyaan gudoomiyaasha gobolada California, New York iyo Illinois maxay iyaguna ku baaqayaan hadii ay sidaas Republicanku gobolka Texas ay sameeyaan arrimahaas oo idil ayaan rabaa bal inaan idin la wadaago waa xaalad taagan oo shantii maalmood oo u dambeysay taagneed bal gobolka Texas xaalad siyaasadeed oo saameyn ku yeelan karta guud ahaan wadanka Mareykanka ayaa ka taagan waxaan ognahay doorashooyinka xilliga dhexe xubnaha aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka oo 435 xubnooda laba sano kasta waa la doortaa sanadka 6 sano ayaa lagu doortaa 6 sano ayaa uu xilka uga dhamaada ayna xubinta sanadka laakiin aqalka wakiilada labadii sanaba waa la doortaa marka doorashooyinka xilliga dhexe markastaba halis ayay ku yihiin madaxweynaha markaasi jooga oo inta badan waa looga guuleystaa aqlabiyada hadda labada aqal ee aqalka wakiilada iyo aqalka sanadka ee Congress-ka Mareykanka Republicanka ayaa hogaaminaya walow cod yar oo aqlabiyada ay aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka ay ku hogaaminayaan 435 xubnood ayuu ka kooban yahay aqalka wakiilada waxaana hadda 219 haysta Republicanka waxaa jiray xubin la yiraahdo Mark Green oo bishii hore iscasilay oo Republicana dimuqraadiyiintana waxay haystaan 212 laakiin saddex xubnood oo geeriyootay ee dimuqraadi ayaa jira oo doorashooyinkooda la qaban doona dhawaan marka haddii saddexdaas xubnood ay helaan 215 ayay noqonaysaa marka haddii doorashooyinka xilliga dhexe ay dhacaan waxay u baahnaan doonaan saddex xubnood inay helaan si aqlabiyadda aqalka wakiilada ay ula wareegaan marka Republicanku waxay doonayaan aqlabiyadda aqalka wakiilada in Trump uu xajisto maadaama sharci kasta oo la meel marinayo ay u baahan tahay labada aqal inuu maro marka haddii midkood aqlabiyadda laga haysto ama labadaba laga haysto way kugu adkaanaysaa sharciyada aad u baahan tahay in aad meel mariso marka dimuqraadiyiintana waxa ay doonayaan waa taas waxaana sidoo kale ay ka faa'iideysanayaan shacabka oo maamulka Trump ku kacsan shaqooyinkii dawladda federaalka dadkii laga ceeriyay sharciga Big Beautiful Bill oo caafimaadka in ka badan 10 milyan oo qof ka jaraya hatta fasax ay ku maqan yihiin xubnaha sanadka town hall wax la yiraahdo meeting ay sameynayaan dadka soo doortay ay la kulmayaan marka xubnaha Republicanka aad ayaa loogu kacsan yahay waxa la leeyahay maxaa sharcigaas u meel mariseen maxaa shaqooyinkii dadka looga ceeriyay xitaa waxaan arkay hadda oo Omaha xildhibaan senator laga soo doorto oo la leeyahay vote him out hal laga codeeyo la leeyahay marka cabsi weyn ayaa Republicanka ku jirta doorashooyinka xilliga dhexe labada aqalba maadaama sanadkan saddex xubnood oo kaliya ay ku hogaaminayaan in aqlabiyadan aqalka wakiiladana hadda 5 xubnood ay tahay in ay lumiyaan aqlabiyadda labada aqal cabsi weyn ayaa jirta marka Trump isagoo arintaasi ka duulaya ayaa gobolka Texas oo ah gobol Republicana waxa uu ka codsaday gudoomiyaha gobolkaasi 5 degmo oo xildhibaano dimuqraadi ah laga soo doorto oo gobolka Texas ah in Republican loo bedelo oo remapping wax la yiraahdo lagu sameeyo arintaasina waa sharci darro remappingka waxa la ogol yahay 10kii sanaba mar wadankan tirakoob ayaa ka dhaca 10kii sanaba mar 2020 ayuu dhacay haddana waxa qorsheysan 2030 inuu dhaco marka ku dhawaad 4 sano iyo bar ka hor tirakoobkii oo aan dhicin ayaa Republicanka waxay doonayaan remapping wax la yiraahdo inay sameeyaan oo shantaasi degmo oo hadda dimuqraadiga dhinaceeda u janjeerta in
leaning republicans laga dhigo oo dhinaca ay republicanka loo leexiyo arrintaasi oo ay dimuqraadiyiintu ku tilmaameen mid sharci darro ah shantaasi degmo marka waxa ay kala yihiin degmooyinka kala ah degmada 9aad degmada 28aad degmada 32aad degmada 34aad iyo degmada 35aad waxaana laga soo kala doortaa degmada 9aad xildhibaan la yiraahdo Al Green oo dimuqraadi ayaa laga soo doortaa degmada 28aadna Henry Cuellar ayaa laga soo doortaa degmada 32aad waxa laga soo doortaa Julia Johnson degmada 34aadna Vicente Gonzalez halka degmada 35aadna laga soo doorto Greg Caesar marka shantaasi degmo ayay doonayaan sharci baarlamaankooda intay meel mariyaan gobolka Texas in Republican loo bedelo arrintaasi oo dimuqraadiyiinta ay sharci darro ku tilmaameen haddaba marka dimuqraadiyiinta maxay sameeyeen in gudoomiyaha gobolka Texas ayaa waxa uu ku baaqay special session wax la yiraahdo kulan qaasa baarlamaanka gobolka Texas maadaama bishii hore afarteedii daalad xoogan ay ku dhufteen oo 136 qof ay ku dhinteen sidii dadkaasi wax loogu qaban lahaa in kulan qaas ayuu isugu yeeray kulankii qaaska ay marka waxay doonayaan inay uga faa'iideystaan in la meel mariyo sharcigan oo dib u qaabaynta lagu sameynayo degmooyinkaasi shanta ah oo dimuqraadi wada u janjeero oo hadda leaning republicans ay doonayaan inay ka dhigaan marka kulankan waxa uu bilowday 19 bishii hore waxaanu ku egyahay 19 soddon maalmood ayaa waxay tahay waajib ama sharcigu uu dhigaya in kulanka qaaska ee baarlamaanka gobol kasta uu socon karo marka 19 bishan ayuu ku egyahay Agosto xubnaha marka baarlamaanka gobolka Texas oo aqalka wakiilada waxa uu ka kooban yahay 150 marka si quorum loo helo waa in la helaa 100 xubnood ama ka badan marka 62 xubnood oo dimuqraadi oo ku jira in aqalkaasi wakiilada ee gobolka Texas ayaa xatii si lama filaanaba uga qaxayba gobolka diyaarada ayay raaceen waxayna kala aadeen gobolada Illinois waa saddex gobol oo dimuqraadi ah Illinois Massachusetts iyo New York ayay aadeen waxay yiraahdeen saddexda toddobaad oo kulanka ka dhiman maba imaanayno si aan sharcigan loo meel marin dib u qaabaynta laakiin waxay kaloo haddana ay meesha ka baxaya dadkii daadadku saameeyeen gurmadkii loo sameynayay in meesha ay ka baxayaan marka waa ay carareen oo iska diyaarada ayay raaceen oo waxay aadeen saddexdaasi gobol oo dimuqraadiga marka sida idin sheegaba marka quorum kuma dhameystirmi karo waa in hadda 88 xubnood oo Republican ah oo kaliya ayaa ku soo haray 62 ayaa baxay oo dimuqraadi ah marka si quorum loo helo waa in la helaa in 100 xubnood ama ka badan sidaas darteed quorumkii ma dhameystirmi karo 51 xubnood amaba ka badan hadii ay maqan yihiin quorumkii ma dhameystirmi karo sida uu sheegay hadda afayeenka aqalka wakiilada oo markii uu isniintii yimid kalfadhiga Dustin Burrows waxa uu sheegay in kalfadhiga uusan dhameystirmi karin sidaas darteed maadaama quorum uusan jirin aqalkii wakiilada waxba ma qaban karo xubnihii dimuqraadiyiintana waa ay baxeen oo saddexdaasi gobol ayay kala aadeen arrintaas marka saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa in sharcigaasi la meel mariyo sidoo kale waxaa jirta in hadda gudoomiyaasha gobolada California Gavin Newsom New York Kathy Hogan iyo Illinois JB Pritzker ay yiraahdeen haddii Republicanku ay sidaasi sameeyaan inaguna waan sameynaynaa oo xubnaha yar ee Republicanka ee laga soo doorto goboladaasi saddexdaasi gobol oo gobollo waaweyn ah inaguna dimuqraadi ayaa u bedelayna hadda California oo kale 52 xubnood waa gobolka ugu badan xubnaha baarlamaanka ee aqalka wakiilada ee Congress ku jira laga soo doorto 52 ayaa laga soo doortaa 52daasi shan xubnood oo kaliya ayaa Republicanka ah Gavin Newsom wuxuu yiri marka anagana kulan ayaan sugu waceena inta aan doorashada la gaarin 2026 November anagana waxaan ka dhigaynaa in dimuqraadi uu yahay bartiisa ay wuxuu ku soo qoray madaxweyne Trump isdiyaar ayuu yiri California wada blue ay noqon doonta arrintaasna adiga ayaan kaaga mahad celinayna gudoomiyaha gobolka New York Kathy Hogan waxay tiri dagaalkan waxa bilaabay Trump inaguna waan dhameystirayna JB Pritzker gudoomiyaha gobolka Illinois oo isaguna ah gobolka shanaad ee xubnaha ugu badan laga soo doorto marka laga soo tago California Texas Florida iyo New York waxa uu yiri inaguna sidoo kale waan sameynayna hadda Texas 38 xubnood ayaa laga soo doortaa shantaasi ayaa waxay yihiin dimuqraadi shantii ayaa la doonayaa in meesha laga saaro Florida 28 ayaa laga soo doortaa 8 xubnood ayaa dimuqraadi New York 26 ayaa laga soo doortaa Republicanku 5 xubnood ayay ku leeyihiin marka sida muuqata dagaal uu Trump bilaabay waayo Trump wuxuu yiri maadaama anigu aan gobolkaasi ku guuleystay xaq ayay u leeyihiin reer Texas in ay iyaguna ay sameeyaan maabinkaasi ay sameeyaan oo kuraas badan ay helaan marka xaaladdu halkaasi ayay maraysaa laakiin gudoomiyaashan dimuqraadiga waxay yiraahdeen haddii reer Texas ay joojiyaan hawshan ay wadaan inaguna waan joojinaynaa horay ayay ugu socdeen Soomaaliya
inaguna waan ku soconayna marka xaaladaasi ayaa ka taagan gobolka Texas oo xubnihii dimuqraadiyiintana gabi ahaanba ay isaga tageen marka waxa ay leeyihiin arrintan waa sharci darro maadaama aan la gaarin 10 sano oo tirakoobka maadaama xubnaha aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka waxa lagu soo doortaa gobol waliba inta qof oo degan population-ka degan marka tirakoobku waxa lagu ogaadaa imise qof ayaa gobolkan ka guurtay imise qof ayaa soo degtay marka 10 sanaba mar ayaa la sameeyaa 2030 ayuu qorshaysnaa 2020 ayaa la sameeyay marka iyadoo la gaarin ay doonayaan hadda Republican-kii marka in iyagu ay iskood ay arrintan ay u sameeyaan arrintaasi waa marka arrinta dimuqraadiyiintu ay aad uga careysan yihiin oo ay leeyihiin arrintaasi arrin soconaysa ma aha marka xaaladdu halka ay ku dhamaato waan arki doonaa laakiin $500 ayaa maalin kasta la ganaaxaya xubnaha dimuqraadiyiinta ee ka cararay gobolka Texas oo gobolada New York, Illinois iyo Massachusetts aaday waxaana sidoo kale jirta in gudoomiyaha gobolka Texas uu ku amray Department of Public Safety-ga in waaran loo jiro oo meesha ay joogaan inta loogu tago la soo xiraa laakiin waarankaasi ma shaqeynayo oo boolisku xaq uma lahan in ay inta gobolkaasi ka tagaan iyagoo ogolaansho helin ay gobol kala tagaan oo ay soo xiraan marka goboladii dimuqraadiga ayay maciin bideen oo iyaguna ay u carareen xitaa senator laga soo doorto gobolka Texas oo la yiraahdo John Cornyn ayaa waxa uu shalay ka codsaday agaasimaha FBI-da ninkan la yiraahdo Kash Patel in lagu caawiyo sidii xubnaha dimuqraadiga loo soo qaban lahaa laakiin arrintaasna iyadana ma dhacayso FBI-du kama caawin karto Trump ayaa sidoo kale shalay la weydiiyay ka waran FBI-da haddii arrintaasi gacan ma ka geysan karta xaaladaasi wuxuu yiri waxaan u daynayaa Kash Patel marka xaaladda halkaasi ayay maraysaa hal la soo xira ayaa la yiri raggaasi laakiin lama soo xiri karo waa dumar iyo rag isku jira oo xubnaha aqalka wakiilada ee dimuqraadiga ee aqalka wakiilada ee baarlamaanka ee gobolka Texas ku jira axadii ayayna diyaarado raaceen xitaa waxa ay sheegeen hadda gudoomiyaha gobolka Texas waxa uu leeyahay waxaan baaraynaa in diyaaradahaasi laga bixiyay ninka hadda Illinois oo gudoomiyaha gobolka waa nin billionaire oo maalqabeena marka ma laga caawiyay iyagana sidahantooda meelaha ay degayaan iyo diyaaradda ay raaceen iyo waxyaabahaasi baaritaan ayaan ku sameynayna maadaama arrintaasi laaluush ahaan ay noqon karto ayuu leeyahay arrintu halkaas ay maraysaa dhinaca kale Trump ayaa waxa uu xalay bartiisa Truth Social ku soo qoray in caasimada DC oo federal ka dhigayo oo gacanta dawladda federaalka uu soo gelinayo haddii dambiyada ka dhacaya aan la xakameyn waxa jirta nin la yiraahdo Edward Cornyn oo ka tirsanaa waaxdii Trump uu Elon Musk madax uga dhigay oo ugu talagalay lacagaha dawladdu ay qarash gareynayso inay yareyso oo la yiraahdo Edward Cornyn oo big boss lagu naanay saxaniyo weyne in 8 dhalinyaro ah ay intay qabteen ay dileen sida sawirkan ka aragtaan jugta ayay ka qaseen wax la leexita dumar ayaa ka marka waxa yiri dhalinyarada da'da yar ee 15 iyo 14 iyo 16 ah hadii inta aan la xirin sharciga ka baqayaan yiri marka waa in la xiraa isla markaana si dad qaangaar loo maxkamadeeyo hadii arrintaasi dhici weyso ayuu yiri waxaan gacanta caasimada DC aan ku soo celinayaa dawladda federaalka caasimada DC waa sida Muqdisho oo kale Muqdisho soo leeyahay maqaam loo sameeyo gudoomiye gobol ma lahan xildhibaano ma lahan caasimada DC waxay leedahay mayor oo kaliya gobol madoow Muriel Bowser la yiraahdo ayaa mayor ka marka Trump wuxuu leeyahay dambiyada ka dhacaya caasimadii Mareykanka haddii aan ammaanka iyo kala dambeynta lagu soo celin gacanta dawladda federaalka ayaan ku soo celinaya awoodayga ayaan isticmaalaya sidaas darteed dawladda federaalka ayaa maamuli doonto arrintaasina sidoo awood ugu leeyahay in kale lama oga marka waan arki doonaa arrimahaasina halka ay ku dhamaadaan aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo